السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن كسر هذا جنرال كتاريخ موضوع ما تارك جهل إنه برامج كان وحوي هاي طبعا كان مجال جوين قارة أفريقيا. طبعا كان مجال مركز لميستيد وحرجينا يا إن منو كنت ميستيد طبعا كاس مد أمر لبو من تكتيد أسوق بتوع كانت تمناد مجال هذا كجرتا دربا وحيكون على صوت أفريقيا. دربا ومجال هذا صدحات يجود دتك بدن South Africa kadib Johannesburg iyo Cape Town waa gobolka ugu weyn koonfur Afrika oo ku yaal xeebta bari ee wadankaasi. Magaaladaasi waxay kaalinta ugu horeysa ay kaga jirtaa dalka koonfur Afrika, magaalada dekedda ugu weyn leh. Durban waxaa loo tiriyaa inay tahay magaalooyinka ugu dalxiiska badan dalka koonfur Afrika. Durban waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 3.4 milyan, sidoo kalena waa xarunta labaad ee muhiimka u ah wax soo saarka koonfur Afrika. Magaalada kaalinta sagaalaad ku jirta ayaa ah Cape Town, koonfur Afrika. Cape Town waa magaalada ugu daada weyn South Africa, sidaas awgeedna waxaa loogu magac daray magaalada hooyada. Waa magaalo dekedeed oo ku taal xeebta koonfur galbeed. Magaalada Cape Town istiraatiiji ahaan meesha ay kaga taal dalka koonfur Afrika ayaa ah mid soo jiidasho leh, waxaana ay leedahay deked aad u weyn. Dadka ku nool ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin 3.5 milyan oo qof. Magaalada sideedaad waa Casablanca, Morocco. Casablanca waa magaalada ugu weyn dalka Morocco. Magaaladu waa mid dhaqaale ahaan iyo muhiim ahaanba ku ah qaaradda Afrika. Casablanca waxaa ku taal dekedda ugu weyn dalka Morocco, waa mid ka mid ah xarumaha dhaqaale ee ugu weyn qaaradda Afrika, gaar ahaanna dalka Morocco. Dadka hadda magaalada ku nool waxaa lagu qiyaasaa 3.7 milyan oo qof, inkastoo caasimadda qaranka iyo siyaasadeed ee Morocco ay tahay Rabat. Casablanca waxaa loo arkaa inay tahay xarunta dhaqaalaha iyo ganacsiga ee wadankaas. Magaalada Casablanca waxaa ku yaal shirkado waaweyn oo hormuud u ah dalka Morocco sidii ay ganacsiga dalkaasi u horumarin lahaayeen. kaalinta toddobaad waxaa ku jirta Dar es Salaam, dalka Tanzania. Dar es Salaam waa magaalo weyn oo Tanzania ku taal. Waa magaalada ugu dadka badan ee dalka Tanzania. Magaalada waxay ku taal xeebta Swahili. Waa magaalada ugu caansan Tanzania dhinaca fanka iyo muusiga, warbaahinta iyo xarunta dhaqaale ee hormuudka dalkaasi Tanzania. dadka ku nool ayaa lagu qiyaasay inay yihiin 4,150,000 oo qof. magaalada kaalinta lixaad ku jirta ee ugu weyn qaaradda Afrika waa Johannesburg, waxay ku taal koonfur Afrika. Johannesburg oo sidoo kale loo yaqaan Joburg waa magaalada ugu weyn ee koonfur Afrika, waana mid ka mid ah 50 magaalo ee adduunka ugu weyn. waa caasimadda gobolka iyo magaalada ugu weyn Gauteng oo ah gobolka ugu taajirsan koonfur Afrika. Johannesburg waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 4,360,000 oo qof. magaalada kaalinta shanaad ku jirta Abidjan, Ivory Coast. Abidjan waa caasimadda dhaqaalaha ee Ivory Coast. waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu dadka badan ee ku hadla afka Faransiiska. qiyaasta dadweynaha magaaladaasi ku nool ayaa lagu sheegaa inay tahay 4,430,000 oo qof, oo ah qiyaastii 20% guud ahaan dadka dalkaasi. Abidjan waa magaalada lixaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. isgoysyada dhaqameed ee galbeedka Afrika, Abidjan waxaa lagu gartaa warshadaha heerka sare ee ku yaal magaaladaasi. magaalada kaalinta afraad ku jirta Alexandria, dalka Masar. Alexandria waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Masar, waana xarunta dhaqaale oo asaasi u ah dalka Masar. magaaladu waa xarun warshadeed oo muhiim u ah wax soo saarka gaaska dabiiciga iyo saliidda ee dalka Masar iyo dhuumaha ka yimaada Suez. Alexandria waxay ku taal badda Mediterranean-ka ee geeska galbeed ee webiga Niilka, ku dhowaad 183 kiilomitir waqooyi galbeed magaalada Qaahira ayay kaga beegan tahay. waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 4,450,000 qof. Alexandria sidoo kale waa goob dalxiis, waxaana sanad walba magaaladaas u dalxiis taga
boqolaal kun oo qof. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta magaalada Kinshasa, DR Congo. Kinshasa waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. mid ka mid ah astaamaha u gaarka ah magaalada ayaa ah inay ku taal hareeraha webiga Congo. magaaladu waxay mar ahayd goob ay ku yaalaan tuulooyin kalluumaysi iyo ganacsi, laakiin waxay ku kortay hab ganacsi iyadoo lagu qiyaasay dadka ku nool inay dhan yihiin 4,550,000 oo qof. kaalinta labaad waxaa ku jirta Qaahira, dalka Masar. Qaahira waa magaalada caasimadda u ah ee dalka Masar, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn qaaradda Afrika. magaalada Qaahira waxay istaagtay ama la aasaasay in ka badan 50,000 oo sano ka hor, halka ay hadda ku taal oo ah webiga Nile. Qaahira waxay ku taal waqooyi bari ee dalka. dadka ku nool ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin 9,050,000 oo qof. magaalada kaalinta koowaad ku jirta ahna magaalada ugu weyn qaaradda Afrika ayaa ah Lagos, dalka Nigeria. Lagos waa magaalo ku taal gobolka Nigeria. waa magaalada ugu dadka badan dalka Nigeria, sidoo kalena ah qaaradda Afrika. waxay ka mid tahay magaalooyinka sida degdega ah ku dhismay. Lagos waa xarun dhaqaale oo asaasi u ah qaaradda Afrika iyo dalka Nigeria, waxaana ku taal dekedda ugu weyn ugu dhaqdhaqaaqa badan qaaradda Afrika. qiyaasta dadka ku nool magaalada Lagos ayaa lagu sheegaa 21 milyan oo qof. dadka magaalada Lagos waa kuwo u jeeda horumarka iyo kor u qaadista dhaqaalaha dalkaasi. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ama mowduuca maanta kaga hadlaynay 10 magaalo ee ugu weyn qaaradda Afrika. dabcan haddii aad halkan soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe-ta nagu caawiso, share-ta, like-ta, commentigana aad baa noo sii raaciso. waa Maxamed Cabdulqaadir oo idin leh intaan kulan dambe iskugu imaanayno insha Allah. nabadgelyo.